Halkan waa shabakada warbaahinta JMN ee laanteeda af Soomaaliga. Wararka ugu doorka roon oo maanta aad kala socon doontaan JMN waxaa ka mid ah shirweynihii caalamiga ah ee midnimada Islaamka ayaa si rasmi ah uga furmay magaalada Tehran. Madaxweynaha dalka Iran oo isna ka soo qayb galay shirkaasi oo hadallana ka soo jeediyay. Putin oo hubka nukleerka u adeegsanaya Ukraine. Warbixin cusub oo ku saabsan arrimahaasina waa nagala socon doontaan. Sidoo kale waxaa warkeena maanta aad ku maqli doontaan Hindiya oo sirta tiknoolajiyada militariga u gudbinaysa shirkadaha gaarka loo leeyahay. Faahfaahinta warkaas ayaa nagala socon doontaan warbaahinta JMN ilaa dhammaadka warkeena ee nala socda ayaan idin leenahay. Shirweynihii 4aad ee caalamiga ah ee midnimada Islaamka ayaa si rasmi ah uga furmay magaalada Tehran. Shirweynihii 4aad ee caalamiga ah ee midnimada Islaamka ayaa si rasmi ah uga furmay caasimadda Iran ee magaalada Tehran. 600 oo aqooniyaan ah ayaa ka soo qayb galay shirkaasi, iyadoo marti sharaf lagu casuumay ay ka kala yimaadeen 40 waddan oo uu ku jiro madaxweynaha Bakistan. Shirweynuhu wuxuu isku keenay shakhsiyaad caan ah oo Islaami ah oo ka kala yimaadeen Ciraaq, Bakistan, Turkiga, Lubnaan, Afghanistan iyo dowladaha Khaliijka. Mowduuca midnimada Islaamka ee waxbarista imaamiyada shuhadada ah ayaa la filaya in uu socdo dhowr maalmood. Munaasabadda ugu weyn waxaa lagu qaban doonaa Tehran iyo magaalooyinka ee barakeysan, iyadoo sidoo kale lagu qaban doono golayaal dood gaar ah oo ka dhici doona gobollo kale ee Iran. Ujeeddada ugu weyn ee shirkan sanadkan waa in la xoojiyo midnimada Islaamka, nabadda iyo bulshada muslimiinta. Waxaa sidoo kale la filaya in uu ka hadlo arrimaha la xiriira aqoonsiga Islaamka, maamulka iyo iskaashiga dhaqaalaha, iyo sidoo kale arrimaha hadda ka jira Falastiin iyo Lubnaan, iyo sidoo kale ajandaha kale ee bulshada muslimiinta adduunka. Madaxweynaha Iran Mas'uud Pezeshkian ayaa ugu baaqay dalalka Islaamka inay iska fogeeyaan khilaafaadkooda oo ay xoojiyaan midnimadooda siyaasadeed, amni, ganacsi iyo midnimo dhaqaale. Shirweynihii 4aad ee caalamiga ah ee midnimada Islaamka ee ka socda magaalada Tehran, caasimadda dalka Iran. Madaxweynaha dalka Iran Mas'uud Pezeshkian ayaa cambaariyay weerarada Mareykanka iyo Israa'iil ay ku hayaan Iran, isagoo sheegay in Iran si buuxda ee awood u leedahay inay isdifaacdo. Waxaa kale oo uu xusay in dalalka Islaamka aysan ogolaan in lagu tiirsado dalkooda, isla markaana la weeraro deriskooda. Sidoo kale, dalalka kale si ay u xoojiyaan amnigooda amaba ay u adeegsadaan dalalka Islaamka si ay ku weeraraan waddan kale oo Islaami ah. Wuxuu sheegay in kastoo ay jiraan kheyraad iyo suuqyo badan oo ay leeyihiin 57 waddan oo Islaami ah, haddana qaar ka mid ah ganacsigooda ayaa la isku geeyaa. Guud ahaan, Pezeshkian wuxuu ku baaqay dalalka Islaamka in ay xoojiyaan midnimadooda dhinaca waliba, sida arrimaha nabadda iyo amniga, dhaqaalaha iyo ganacsiga. Putin oo hubka nukleerka u adeegsanaya Ukraine. Warbixin cusub ayaa soo jeedisay in Ruushka uu ka fiirsan karo in uu sii kordhiyo dagaalka iyo isticmaalka hubka nukleerka ee xeeladaysan haddii wada-hadallada nabadda ee Ruushka iyo Ukraine ay fashilmaan. Sida laga soo xigtay warbixinta Moscow,
waxay xoojin kartaa weerarada gantaallada ah ee ka dhanka ah magaalooyinka muhiimka ah iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee Ukraine oo ay ku jirto Kyiv. Cunaqabataynta reer galbeedka ah iyo weerarada Ukraine ee lagu qaadayo warshadaha saliidda ee Ruushka ayaa sii xumaynaysa xiisadda. Si kastaba ha ahaatee, ilaa hadda ma jiraan calaamado cad ah oo muujinaya in Ruushka uu sameynayo diyaargarowga la taaban karo oo ku aadan weerarka nukleerka ah. Falanqeeyaasha amniga ayaa sheegaya suurtagalnimada isticmaalka hubka nukleerka ay yar tahay. Sidaa darteeda, warbixintu waxay ka dhigaysaa suurtagalnimada weerar nukleer ah, balse macnaheedu ma aha in Putin uu go'aansaday inuu fuliyo weerar nukleer ah. Hindiya oo sirta tiknoolajiyada militariga ah u gudbisay shirkadaha gaarka loo leeyahay. Hindiya waxay hirgelinaysaa siyaasado cusub si kor loogu qaado wax soo saarka hubka gudaha iyo inay isku filnaato tiknoolajiyada difaaca. Wasiirka Difaaca Hindiya Rajnath Singh ayaa xaqiijiyay in tiknoolajiyada gantaallada casriga ah iyo nidaamyada dareemayaasha ah iyo sidoo kale macluumaadka wax soo saarka qarsoodiga ah ee ay samaysay DRDO lala wadaagi karo shirkadaha gaarka loo leeyahay ee gudaha. Go'aanka waxaa loogu talagalay in wax soo saarka gantaallada oo hore ugu tiirsanaa shirkadaha dowladdu leedahay loogu beddelo ka qaybgalka shirkado gaar loo leeyahay oo ballaadhan. Barnaamijka hoos yimaada gantaallada hawada ilaa dhulka iyo kuwa ka hortaga sida Akash, Astra, Rudram iyo Naga waxaa si ballaaran oo soo saari kara shirkadaha gaarka loo leeyahay. Si kastaba ha ahaatee, gantaallada istiraatiijiga ah ee nukleerka ee Hindiya laguma dari doono wareejinta tiknoolajiyada. Tallaabadan Hindiya waxay doonaysaa in ay ku beddesho qaar ka mid ah iibsigeeda hubka shisheeye ee balaayiin dollar ah wax soo saarka gudaha si dhaqso leh u daboolo baahiyaheeda ee militari iyo xoojinta awoodaheeda tiknooloji ee shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexe. Hindiya waxay qaaday tallaabo cusub si ay u kordhiso wax soo saarka difaaca gudaha xawaare degdeg ah iyadoo sir yar iyo tiknoolajiyada militari ah oo ka timid dowladda u wareejinaysa shirkado gaar loo leeyahay.